wadamar haddii xaaraan ku jirto jajabkaas way u dambaysaa laakiin wax sida xalaal markii loo dhisay toosayaan mid kale daa ku fahansiine wadooyinkan burburka hotoro wada walba oo la dhisaayo dadka deegaanka lacagta laga soo qaadaa dadkaas deegaanka lacagta oo moodada lagu dhisaa laga soo qaadaa ka bacdi waxariis ee dawladda ka buuxisaa markii weesha xildhibaan Jacfar la soo dhaafo boorkii ayaa ku dhigan in wada la sameeyo sanad ayaa laga joogaa ilaa hadda wax la qabtaa malo marka laga soo bilaabo wada kasta howladaag iyo la isku xir hodan laami dhex maraayo oo wadada kale ku dhacayo si saxmadu u yaraato magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa ku socda dib u dhis dhanka wadooyinka ah tan iyo burburkii ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee wajiyada kala duwan lahaa ee dalkan muddada dheer ka socday wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwa aad u burbursan isla markaana qaarkood ay adkeed inay adeegsadaan gaadiidka noocyadooda kala duwan saxiliyadii dambe waxaa la arkayay maamulka gobolka Banaadir iyo dawladaba iyadoo dadaal xooggan ku bixinaysa sidii wadooyinkaasi dib u dhis casriya loogu sameyn lahaa wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyo ayaa dadka waxa ay sheegeen inay caqabad ku yihiin dib u dhiska lagu sameynayo isla markaana ay ahayn wadooyin si rasmi ah loo dhisayo maadaama xilliyada roobaadka iyo xilliyada qaarba ay dib u burburaan wadooyinkaasi magaalada Muqdisho gudaheeda wadooyinka ugu muhiimsan ayaa ah kuwa intooda badan xiran qaarkoodna waa kuwa burburay hadda qaar ka mid ah ayaa dib u dhis lagu wadaa halka qaar kalena la dhameeyay oo dhawaan xaragga laga jari doono tan iyo wixii ka dambeeyay 2022 wadooyin aad u badan ayaa magaalada Muqdisho laga dhagax dhigay oo uu ka dhagax dhigay maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood aan weli dib u dhis lagu sameeynin balse qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhigtay wadooyinka burbursan iyo kuwa dib u dhiska lagu sameeyay ayaa waxay tilmaameen in dawladda Soomaaliya aysan sidii loo baahnaa u qaban shaqada isla markaana injineerada ka shaqeeya wadooyinka ee loo dhiibo ay gaban shaqadoodii sidoo kale qaar ka mid ah shacabka ayaa waxay tilmaameen in dadka degan degmooyinka gobolka Banaadir ay rabaan laaluush marka loo dhisay wadooyinka sidaasna ay injineeradu uga tagaan wadooyinka oo kala barmaraya amaba ay ka dhigaan wada aan dhamaystirnayn wadooyinka waaweyn ee halbowlaha waa caasimadan ka soo koraysa dagaaladii wajiyada kala duwan lahaa ayaa intooda badan ah kuwa xiran una xiran dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale qaar kale oo burbursan oo shacabka iyo gaadiidka dadweynuhuba ay dhibaato ku qabaan saasa wado lagu dhisaa mid kale daa ku fahansiiyeen hotoro meeshaan mashruuc leh lagu kala cunaa ma ahani wada in la dhiso looma baahno way fiican hadda wadooyin qaar waa la dhisay kuwana hadda waa la dhisoyaa meelahan dhagax yaalan walaahi mashii kiri kuleyba in ay ka qaadayaan in ay ka qaadi doonin kuleyba dadkan dad ay ka taliyo waay in fahantaadi amarkooda bis in la qaatay u baahan amarka shacabka inay qaataan marwan dhagaxan uu iska yaalaa sababtoo ah dhagax in laga qaado dil mar hore ay ka qaadi laayeen marka mid walba oo waxiriis oo isku arka laba dhagax oo iska dhigana marka waxaan wax la isku arka way hadda ma ku cusub meesha magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed oo toro qofkan shacabka adoo xaq u leeyahay adoo xaquuq u leeyahay hatta raashin oo cunumsiino si laakiin meesha oo mar la adaa ku dhibto qofkaasi oo ka hor imaana waxa sameelay ana ahaantiida daalay wadooyinka ahna xiran waa fur lahay amnigeygan ana ina sugtay laga rabaa ana suugo lahay kaliya dhagaxaas meesha iyal in aan ku badbaaday waxaan wax qoran waay waqtigaada ku dhimanay qofkan bini'aadanka intii raxil ku hees in adi oo macnaha oo dhagax meel aad dhigatan asina aad ku dhibto meelaha u dhowdahay meesha stiikarta waxa uu soo maray wada dheer waxaas shidaalka xataa uu kaay goona marka ma fiicno ana daawa haalahayba dhagaxintii waxaas waa ka qaadi lahay dadkana ma dhibi lahayn dadkan waxyaabo badan waa u qaban lahay laakiin hadda ani madax miyi mid kale daa ku fahansiiyay wadooyinkan jajabka waxaan waa ka dhisi lahay hadii markaas madax aalaay oo kale dalkan dadka masaakiinta oo kale waa caawilay hadda oo kale waxa jira dad masaakiin marka roob imaado buushash degan meel ay seexdaan la oo roobkaas oo ku da'ay ku faa'iidan adaa madax ah waa iska raaxaysanaa dheer oo waxa iidan $300 VAB ku jira way kala kacsan tahay qofkaas xuquuqdiisa ilaaliyay maanta marka taas ilaahay ugu xisaabtamay waa dambi aad iyo aad u weyn oo waliba dambi ka bax inoo qof oo ani maanta li xil saari oo roob halkaas ku dilo buushkaas war madaxweynaha taa ma garatid ma ina baxweyne xataa u taagto daba qaad iska degnaa codku weeysta ma lahan dadka masaakiinta oo tawarteer waxa la rabaa inaa kor u soo qaado baaqa ku waxa way laamiyaasha jajaban in sida xaq loo dhiso xaaraantii iyo waxaas la cunaa la iska dhaafo laamiga mashruuc lagu soo qaado lagu dhiso kuwaalta lagu xisaabtamayo injineerada dhisaayo
amba waa engineer macnaha aan kaamil aan ahayn oo xagga aqoontiisa ay wax ka dhiman tahay amba ku talagalo u yaray oo dhaqaale bisoo raadinayay oo nin dhaqaale raadis waayey maanta caqabadaha tagan ayay ka mid tahay arrimahaas si wadooyinka iyo wuxuu ahay wadankii cudurro ku soo bateen maalin kasta qashinka waa la qaadaa waxaan u sabab leeyahay ganacsatada maanta waxay keentaa bariis dhacay bur dhacay baasta dhacay qaar ka mid ah wadooyinka la dhisaayo shacabka badan dhaqaalaha laga qaadaa amba canshuurha looga qaado amba calaa guriha looga qaado ismanaantaas haddana wax tagi loo sameeyo waa dhibaato inta la eg wadadan soo qaada hadda waxaan ku sii darsan lahay laamiyaal yar oo muxuu ahaa interlogyo xaafadaha waa laga sameeyaa la isku soo qaada hadda ka hor howladaha kale waa laga bilaabay laakiin lama dhammaystirin dhanka oo wadada ku aad maxaa la yiraahdaa ceel garweyne wax yaraa la bilaabay ilaa 2 boos camal la sameeyay ka bacdi waa la istaajiyay boorku wuxuu ku dhagan yahay markii weesha xildhibaan Jacfar la soo dhaafo boorkii ayaa ku dhagan in wadada la sameeynayo sanad ayaa laga joogaa ilaa hadda wax la qabtaa malo marka laga soo bilaabo wada kasta howladaag iyo la isku xir hodan laami dhex maraayo oo wadada kale ku dhacayo si saxmadda u yaraato saas ayaan ku tali lahay aniga ruuxaantii wadadii oo jaama wadadii oo jajabsan wadadii biyo yaalaan wadadan oo wadnaha kale wiliga biyo fadhiisan oo hadda aan joogno oo wareysiga lagu qaadayo oo la dhahay maxaa la yiraahdaa marmarka soo bilaabo ilaa madaxtooyada inta u dhaxays biyaha fadhiisanayo waxayna ku dhacday systemkaas injineerka xaqiisa ayaa qalad ka imaaday iyo la xisaabtan la'aan xagga maamulka ama gobolka ha noqoto banaadir amba degmadaas markaas qaabishan amba waabiri ha noqoto amba hodan ha noqoto u dhaxeeya wadadaas ayaan la xisaabtamin bal waxaa maqlaa marka qaarkood amba injineerada war aan ku maqlay ilaa war waan maqlaa mugtahay annaga intaan wada iyo yani system aan xagaaji lahayn degmooyinka laga nabadgeli waayo qof walba aan maxay uga sheeg percent maxaa leeyahay ayaa dhacday injineer laga hayo warkooda sidii turkiga oo kala dhisan lahay haddii la wareysto leeyahay saasaan haysto annaga oo yani percent ayaa macna ku wareeriyay macnaha meelihii biyaha wadooyinka biyaha mara jiray si loo leexay yani xog ma aan helin marka hadda wadooyinka dhiman waa in la sameeyaa si wadada shaqaalaha iyo wadada muxuu ahay ilaa ku soo diiday shaqaalaha kale iyo wadooyinka walmada oo wili u maxmuuriin oo kale waa meesha caasimadii Soomaaliya ka bilaabanayso waana jaban tahay hal laami ayaa ka fiican oo dekada maray ilaa iyo tagayooyinka tagay inta kale baaba waa meesha caasimadii ka bilaabanayso Muqdisho oo taariikheed hadda dadka shacabka deegaan canshuur waa laga qaadaa oo macnaha degmadaas maxmuuriino مع ذلك هذا الوضع لو مسمين ما حيكون عادي ما ضد كام معناها حوغي العق عشورة بحد ما مدحضة معناها الغالب بس راسان وما دو دلين أو أيضا طول بس إلا هدوا فهم اللعنة بركي الله وعلاه نقول بركي مدحضة وعلوه بهاي يعني مدح الله تلا صارته أو إلهي اللي حسابته بريتو الدين اللي هو حسابته مايو آخر حساب كوريس اللي هو حساب تمام أو الدين كان يها جيان يعافمات كحقيس في الأوركب سيدا عندنا هذا واحد الأوجادي dadka madaxda ee wadanka soo mara amba kuwa hore naqdo iyo kuwa hadda imaanayo ninka madax oo daacada dilaab u qoran buu amba xilka weynaabo taas waxay ku dhacday shacabka ana ogeyn wax dan u ma ogo shacab weynaha ninka dan u wada ma ogo ninka maanta xaqiiqin oo madaxda oo ka daac sheegay oo dadka u shaqeynaa u qadmeenayo waxa u qoran laba shay inuu macnaha oo xilka waayo iyo in la dilo mission lagu dilo saas aawina dadweynaha inay ka fikiraan oo u baraarujinayaan dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ayaan ugu baraarujinaa in ogaadaan xogtooda ninkii wax u qabanayo oo waxtar leh quality madaxda maanta adduunka waxa lagu tartamaa ninka hadduu macnaha duqa magaalada oo yahay oo wax toosi waayo dadku shacabka ka sameeyo was casilaa ilaa wixii loogu talagalay ma una qaban hawsha bari wuxuu ku xisaabtaa meesha laga soo galo doodale ninkaas madaxda eh xilo soo raayna oo helay xilkiisa ilaa meesha laga soo galo ogaaday wuu iswanaajiyay xilkiisa weeyla isku badijin maanta laakiin madaxdeena maanta waxay u badan tahay in xataa xilka ay ku raashaan meesha ay ku raashaan xaqiiqatan la hadla ilaahay ma ka cabsanayna aadana ka cabsanayno marka madaxdu waxaa leenahay dadka u turaan ayaa bari laga weydiinaya shacabkuna ha ogaado cidii tan u wax dhibaato u keenaya shacabka iska ilaalishaano ama afraas qabiilna ha loo gudbo oo qarna ha loo gudbo dhibaatada Soomaaliya waxay tahay qabiil ayaa laga soo celaya meel walba wadooyinka ugu muhiimsan waxa kamid ah wadadan oo dheer oo waxa la yiraahdaa marayso Madiina galayso ayaa waxqad u baahan biyaha fadhiisanayo oo mashruucyada socda wali oo amaan oo biyo fadhiiska oo la hayo wadada buuluxulay ceel qalow waa wadada ugu qatarsan wadada labaad waxa waaye tan wuxuu ahaa meesha Allah iyo daalad oo idin biyo fadhiis ah waa meelaha ugu daran qatarta kamid tahay iyo wadada kale kamid ah alboorka waxa martay muxuu ahaa iskool booliisiya intuu dhaxaysa iyo suuqa beerta biyaha fadhiisto waa biyo ku qaadaya inay biyaha fadhiistaan waa halis iyo wadada kale lamid ah galaysa labada buunta marayso oo aad u baabaasan dadka deegaanka la xisaabtamo oo biyaha wasaq u daadinayo dawladda waxaa ka codsan inay wadadaas wanaajiyaan laamina laami quality leh oo quality leh ilaa 40 sano 50 sano nus qarni ugu yaraan ayaa loo baahan yahay wadooyinka la dhisay waxa uu sababay meelaha qaar si fiican looma dhiso meelaha dhamaadkii meerkay gaaraan dawladda si fiican uma dhisto sababta dadka dhisayaan lacag ku qaataan anaga lacagna la ka qaadaa daamuutuuleenaani
hal doolar dhulkiin ku dhistaan aan lahay hal doolar kuga dhiibnaa laakiin wadooyinkeena si fiican looma dhiso meelihii dadka lacagta leh ama dadkii oo dowladda u shaqeeya meesha degihiin iyo ay degihiin oo kaleeto meesha si nadiif ah loo dhisaa meesha weligeed aan xitaa burbureys 1000 sano hadda soo socda xitaa burbureys laakiin meesha shacabka ay degihiin oo shacabku nool yihiin wadadaas oo kaleeto si fiican looma dhisaayo biyaha laga qaadaa bisa doroob imaadane way jajabaysaa haddana biyo degeynay noqonaysaa meeshana wasakh iyo dhiiqay noqonaysaa haddana biyihii meelay ka baxaan looma furaayo wadooyinka waa la iska dhisaa biyaha hadda maanta meel Soomaaliya biyo mareen waa la dhihi kara ma lahan waayo biyihii dhan meel kasta qabay noqonayaan inay imaadaan booyadaad dhuuqaan mooyaane si kale biyihii meel wada maraa malaan wada markaa dhisaysana waxaa fiican inaad samayso ilaahu kuma darnaadee meel ay biyaha ka baxaan iyo wasaqda ka bixi karaan marka intaas aan dhihi lahayn dowladda intaas oo sheegi lahay shacabka lacagtooda wadada ku dhistaan si fiican wadooyinka la dhiso wadooyinkana haddii la dhisaane meel ay biyaha maraan iyo aan la sameeyo haddii meel dalcad laga dhigo meeshaan god laga dhigo meeshaas dalcadeed biyo ka soo degayaan meeshaan godka isku imaayaan markaas wadooyinka saas haddii loo kala dhiso waa qaab daro marka anaga oo bajaajilay haddaanaanay waayo biyo meel fadhiisto waa aragnaa dhibaato inuu tahay mootada markaas oo kaleeto hadda waddadaas oo kaleetiyo waa si aad u xun tahay oo dhagax tuur dabka markii laga degto waddadaas oo kaleeto dhismo mar walbaa la dhisaa ilaa haddana saas waayo saas oo kale waa laga fiican marka haddaa wax qabaysa wax si fiican u qabo amase wax ma qabo kariyaa kaa fiican kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet